بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله halkan waa xaruntii mashruuci weynaa ee Northgate Ankara xafiiskii aanu ka maamuleynay mashaariicda alxamdulillah waxa weeyaan maanta in aan maaragtay codkaanaga iyo aragtidaanada baa nala wadaagtiin walaalo badan baa nagu soo booqday xarunta oo noogu yimid nala arkay shaqada meesha ka socoto iyo habkaan u shaqeyno maanta waxaan rabnaa inaanu u fududeyno insha Allah walaalaha ku soo socdo mashruucan inay ka qayb qaataan iyo walaalihii hore uga qayb qaatay ee aan jaanis ku helin in ay maaragtay yimaadaan ku soo dhawaada walaalayaal xaruntaanada aanu ka maamulno mashruuca iyo xafiisadaanada halkan waxay la fadhiyo architect director-ka oo mashruuca Northgate Ankara Master Sanja oo maanta naga siiyay warbixin guud mashruuca sida uu socdo iyo faysaska uu ka kooban yahay. Ankara'ya hoş geldiniz. Northgate Ankara projemiz Ankara'nın kuzeyinde Pursaklar'da Sarayköy mevkiinde yer alıyor. Yaklaşık 1.400.000 metrekare arazi üzerinde 3 etaptan oluşan bir kent oluşturma projesi. İlk etapta otel, home office, alışveriş merkezi ve apartmanlardan oluşan. İkinci etapta yine home office, otel, alışveriş merkezi bulunuyor. Konutlar ayrıca var. Üçüncü etapta cami, villa, üniversite, hastane gibi inşaatlar var. Her etapın süresi yaklaşık 3 yıl. Bu etaplar birbirlerinin içine geçerek 8-9 yıl içinde projenin sonuçlanmasını sağlayacak. Bütün proje süremiz 8-9 yıl. İnşallah bir kaza bela olmaz ise bu projeyi bugünden itibaren 9 yıl içinde bitirmeyi planlıyoruz tümünü. Şu anda ise otel, konut ve home office alışveriş merkezi bölümünün temellerinden başlamış durumdayız. Şu anda onun inşaatı devam ediyor. Kazıları tamamlandı. Kaba inşaatı devam ediyor. Yaklaşık bir ay sonra da konut projemizin, apartman projemizin temelinden başlayacağız. İdari işleri yaklaşık bir ay içinde tamamlanacak. haddaan idiin soo koobo waxa weeyaan mashruucu wuxuu ku fadhiyaa baaxaddan 1,400,000 oo metr square waqtigan xaadirka ah waxaase loo baahan yahay in mashruucan oo saddex fays oo hadda idiin sheegi doono ka kooban waxaa loo baahan yahay in la helo 1,780,000 metr square marka waxa weeyaan mashruucan qaybta ugu horeysa waxaa la dhisayaa hadda hoteelo apartmentooyin iyo home office waa guryo iyo xafiisyo isku jira oo loogu talagalay inay maaragtay looyarada iyo qareennada ay degaan qaybta labaad wuxuu ka koobnaan doonaa iyadana home officeyo apartmentooyin iyo qaybo tiyaatarka oo kale ama meelo xaflada lagu dhigto oo waaweyn ah qaybta saddexaadna waxay noqon doontaa masjidkii masjido iyo university ballaaran oo meesha laga dhisi doono iyo apartmentooyin iyagana deegaan ah waqtigan xaadirka hadda waxaa la wadaa qaybtii koobaad oo aan sida idin sheegay apartmentooyin home office hotel ka kooban ayaa hadda waqtigan xaadirka gacanta lagu haya
waad mahadsantahay Master Sanchez aad iyo aad waxaa u mahadsan walaalihii boqolaalka kun na soo gaarsiiyey mashruuca feeskiisa hore ka faa'iideystay waqtigii koobnaa ee aanu qabanayna naga codsaday inaan u kordhino haddaba sida aan la socono aan la soo socodsiinay walaalaha qaarkoodna ay og yihiin waxaa jiray in codsiyo badan uu ka yimid waddanka Mareykanka oo u badnaa oo ahaa in loo kordhiyo waqtigan gaaban ee December ku ekaa mashruuca waxaanu markii aan muddo dheer ka fikirnay aanu maaragtay meelo badan ka fiirinay go'aansanay inaan mashruucii aan u kordhino ilaa iyo 31 Mars lacagta qiimaha sheerarkiina waxay ahaayeen sida aanu horeba idinku soo gudbinay 4650 marka walaalayaal waxaan idinku baraarujinaynaa in waqtigana gaaban yahay mashruuciina aanan mar kale in la dheereynaynin aan ognahay oo mashruucii faysaskiisii hore aad looga faa'iideystay marka waa fayskii ugu dambeeyay iyo hal bil iyo bar waxa noo haray 31 waxaad nagala soo xiriiraysiin xiriiradii hore iyo hadda iyagoo hoosta ku qoran waad mahadsantihiin بسم الله أما بعد حقيقة يرونتي وفرصة آدي آدو قيمة بدن وآدو ونكسن كفائديسيغا مشروعي أي نوشر حين ولا لهنا قداش إذا تاغن وحان لنا هاي هلقا فائديسو ومدة كوبان أو كوئك سيد الله شيغي كوب يصدن كابشا صدحات بإذن الله تبارك وتعالى كفائديستا ترينكو هدي أوتاغو إنا لقارين بالغا يابا آد بادو ماسنتين ولا لهن ونمهد علينا يا جزاكم الله خيرا